waxaa ugu talagalay qof kasta oo in la siraa ama la marin habaabiyaa ama si qalada wax loogu sheegaa oo waa dambe waagu u baryay ayay ku socotaa. ma lagu siray weligaaga? imise goor ayaa lagu siray? ma kugu soo noqotaa in lagu siro, in lagu marin habaabiyo oo lagu siro, wax qalad lagu sheego oo ma kugu soo noqotaa? adigoo yar iskoolka markaa dhiganaysay ma lagu siri jiray oo qof ma lagugu diri jiray? adigoo weyn weli ma lagu diraa inta lagu siro qof wax kugu sirsiro wax qalada kuu sheego ma duushaayo qof ma u tagtaa? adigoo haddana guur gashay guurkaagii inta lagu siro ma ku burburay? waalidkaagii ma lagugu diray ama ayaga dad ma kugu direen? walaalahaagii ma lagugu diray mise dad ma kugu direen? dariskaagii ma lagugu diray dadse ma kugu direen? waxaas oo dhan waa sir. shaqada markaa joogto ma lagu siraa oo ma lagu diraa mise haddana adiga haddana lagu mardabeeyaa? meeshii ahaataba nolosha oo dhan binu aadanka qalbadiisa wax ku jiro qof garan kara male, laakiin hal qof ayaa ka badbaadaya. waxaana ka badbaadaya arrinkan ugu magac daray eena u bixiyey sirmaqabe alla u sahane. sirmaqabe alla u sahane waa arrin sal balaaran oo weyn. waxayna noo noqon doontaa barnaamij taxana ah. wuxuuna hoos imaanayaa barnaamijkeenii ahaa dhakhtarka qalbiga, maadaama ay tahay in lagu siraa arrin ka socota qalbiga. waxaana ku socon doonaa isagoo taxana ah. markay ii noqoto ayaan soo gelin doonaa insha allah. kusoo dhawaada mar kale channelkeenii ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashiinii ismahan khaliifa cali oo mar kale idiin sidaa wax dayala oo qalbada u roon. ismahan khaliifa caawa waxay idiin soo diyaarisay barnaamij ay ugu magac dartay oo noqon doona taxane aan ugu magac daray sirmaqabe alla u sahana. soomaalidu beenta waxaa la dhahay way sheegaan laakiin kuma mahmaahaan. laakiin mahmaahdan waa mahmaah aad iyo aad cajiib u ah ku saabsan kuna soconaysa qalbiga. qofka qalbigiisa ayay ka hadlaysaa. anigana maadaama soo magac daray dhakhtarka qalbiga aana jeclahay markaa idinla hadlayo inaan qalbiga ka hadlo, aana jeclahay inaad tafantir badan iyo waxyaabo fara badan oo qalbiga ku saabsan mar walba ka hadlo. aana jeclahay inaan anigana markaa idinla hadlaayo qalbiga ka hadlo ee aan maskaxdayda geemka ciyaarin. halagu fiirsado keliya iyo halagu yeelo keliya aysan ahayn ee ahaato si nadiif oo daacada adduunkana nabadgelyo oo qalbadayda nabadgelyo ku jirtaa oo farxada aan ku sheegaa warkayga aakhirane aan ilaahay ka rajeynayo jasigayga in wax wanaagsan iga yeelaa biidnillahi kariim. marka waxaan idin leeyahay barnaamijkan aan ugu magac daray sirmaqabe alla u sahne waxaa aad iyo aad noogu batay bulshadeena soomaalida in aad iyo aad dhexdeena dumar ha ahaadaan rag ha ahaadaan maanta dhan isa siraayaan. waxaa arkaysaa nin tagay baar oo lasoo siray oo naagtiisa lagu diray. waxaa arkaysaa barnaamij muxuu ahaa dumar kala siraayaan. waxaad arkaysaa ilmo iyo waalidkooda laisku diraayo. waxaad arkaysaa walaalo laisku diraayo ama ayaga dhexdood isku diraayaan ama waxay ahaataba in lagu siraa oo lagugu siraa wax lagugu siraa oo lagu mardabeeyaa ayaa soo noqotay. guurkii ayaa la dumiyey. marka sirmaqabe alla u sahane sidee ku dhacday? soomaaliya waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada mar kale sirmaqabe alla u sahan ayaan rabaa inaan ku socdo aniga oo aan jeclahay inaan wadnaha idinkala hadlo. marka sirmaqabe alla u sahane bal wax yar hadalkaas ku noqo. sirmaqabe alla u sahane maxay kula tahay dhadhami si fiican arrinkaas. sirmaqabe alla u sahane macnaheeda maxay tahay? sirmaqabe alla u sahane waxay tahay qofkaas sir ma leh, qayaamo ma leh, xasad ma leh oo macnaha wax sire iyo hagare ama hagardaame ama dhibaato ama dulmi ama dad kala geyne ama dad isku dire ama guri dumis ahayn ama aan ahayn waxay ahaataba maxaan ku dhahaa wax xun oo dhan aan qalbadiisa ku sugnayn. allah ayaa sahan u subxaan allah waa cajiib. sirmaqabe allah u sahane ma idinla tahay in ay badan yihiin inta aan sirta qabin? subxaan allah. maxaa yeelay hadduu qalbigaaga ku jiro maseer sir ayaa kuu laaban. hadduu qalbigaaga ku jiro xasad maseerku mataankiisa waaye.
hadduu qalbigaaga ku jiro dad nacayb waa sidaasoo kale wadnahaaga nadiif ma ah, sahan allah kuma noqonayo. hadduu wadnahaaga ku jiro dulmi, sahan allah kuma noqonayo. micnaha sirmaqabe allah u sahan si aad u heshid waa in aad si dhab ah wadnahaaga nadiif uga dhigtaa. waa walaasha dhakhtarka qalbiga ismahan qaliif oo kule wadnahaaga oo nadiif ayaa sirmaqabe allah u sahanay ku sugnaanaysaa. soomaalida waxaan nahay dad maasha allah aan ku xeel dheereen arrinta qalbiga aad iyo aad ogama hadalno. macnaha markuu qofka aqliga badan yahay waxaan dhahnaa waa qof maskax fiican aan dhahnaa, laakiin sida caadiga qofka qalbiga fiican ayaa aqli badan. maskaxda way ku qiyaami kartaa, way ku dhibaateyn kartaa, macnaha shaydaan ayaa aad ugu tuman karo. laakiin wadnahaaga markuu nadiif yahay adduunya aakhiro waa guulaysanaysaa, dadkana qalbadaa laga dhisaa. marka sirmaqabe alla u sahane subxaan allah arrin aan ku raaxaysanayo waa aad uga helaayo. marka waxaan idin leeyahay sirmaqabe alla u sahane waxaa nooga dhigi doonaa taxane. caawa waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga daro maadaama waqtiga ayuub uu soconayo 10 daqiiqo inay gaarta aan rabin. waxaan maanta idinku darayaa maadaama uu maanta hordhaci ahaa, waxaan idin leeyahay sirmaqabe alla u sahane dhinac walbo oo qof laga siro iyo sida lagu siri karo iyada oo siduu kaga hortagi karo oo idin sheegayo. arrinka maanta kow waxaan ka dhigayaa kow qofka binu-aadanka ah, adiga haddaa waalid tahay iyo haddaa qof binu-aadan mas-uulka tahay iyo naftaadaba, waxa ugu weyn ugu muhiimsan qofka waa inuu noqdaa qof shaqsi madax bannaan, allah ka cabsanayo oo nadiif oo daacad ah. wax kastoo loo sheegaana ka duulin, wax walbana haldha ka maqlin, daacad ah, nadiif ah, degan, iimaanka qalbadiisa si dhab u dejiya. maaha inaa masaajidka aadid bis ma aha, masaajidka waa la aadaa wax wanaagsan waaye, salaada waa la tukadaa wax wanaagsan waa, laakiin haddee salaada lagama aqbalayo hadduu uu qalbadaada nadiif ahayn. masaajidkaa tagaa salaada tukadaa maanta dhan jaakad biraan gashanaya oo qab fara badan leh, keliya wax ma tarayso meel laguma maro. soomaaliyey cashiro fara badan ayaan u baahanahay si anaga wax isaaga bedelno shakhsiyaad ahaan, gaar ahaan dadkeena waaweyn oo waalidka ah, kadibna ilmaha oo masaakiimiinta galbeedka ku dhashay dhaxal wanaagsan nooga dhaxlaan iyo kuwa Soomaaliya joogaba meel walbaba. marka waxaan ku leeyahay qofka binu-aadanka sidiisaba waa inuu ahaadaa shaqsi madax bannaan oo nadiif ah oo nafsadiisa daryeeli karaa, nafsadiisa meel ka soo saari karaa, qof nadiif ah oo qofna ku xirnayn oo meelna tuba uga surnayn, hal meel warka maqlaa uusan ahayn, qof isticmaala wadnihiisa asaga waxa uu dareemayo, waxa runta iyo beenta, xaqa iyo baadilka waad kala garanaysaa. qof kasta oo qaangaare uu garanaya. ilmahana waa inaad ku tarbiyeeshaa in aadan ku dhihin ilmahaaga anaa dhaga iyo indho ku ani isoo raac ma dhihi kartid ilmahaaga, sababtoo qof kasta qof indho u noqon karo male, casri cisho iyo habeen iyo subax iyo maalin qof daba socon karo male, qof indhihiisa iyo wadnihiisa raacsin kara male. marka ilaahay wuxuu na siiyey wadno qurux badan oo adduunyadaada iyo aakhiradaadaba markuu nadiif noqdaa aa ku guulaysanaysa. marka wadnahaaga markuu nadiif noqdaa oo daacad noqotaa oo ka shaqaysid wadnahaaga oona wadnahaaga dhegaysatid, haddii kale waxaa noqonaysaa qof hayiraace oo dadka dhegaysto, dadka ka heebaysto. micnaha kasoo qaadoo kale waalidkaaga qaldan ayaa waxaa leedahay hooyaday waa sidee yeelayaa, laakiin adduunya aakhir ayaa ku seegaysaa. waa aabahey sidee yeelaa, aabahey ayaa i dhahay qasabay igu eed inaan sameeya, wax jira ma aha. aabaha naarta kaama badbaadinayo, beri adduunyada kadeedkana kaama celinayo. walaalaha sidaasoo kale walaashay waaye walaalkay waaye wax la dhaha ma jiro. qofka waxaa la rabaa qofka binu-aadanka shaqsi madax bannaan, xaqa iyo baadilka kala saara inuu noqdo isagoo adduunka joogo intuu naftaan sido. waa la dhimanaya ilaani, adduunkana waa ku hoognay waana ku ba'nay ilaa hadda meel walba Soomaali hadda aragtid way kala daadsan yihiin, guryaha way dudumayaan, waa la siraa dadka, dada siraa dadka, dada hadalka xataa si sarbeeb hadalka ugu dhiibo, dadka u kala dhiibo. laakiin see ku baranaysaa waa in dadkii la baraa, cashir ahaan lagu siiyaa, loo sharxaa, buugaag laga qoraa, wax kasta laga qoraa. marka waxaan idin leeyahay sirmaqabe allah u sahane asaga oo taxana waa noogu socon doonaa. maanta waxaan kusoo qaatay xalqada koowaad waaye qofka binu-aadanka ah inuu noqdo shaqsi madax bannaan oo nadiif ah, daacad ah, qofna ku xirnayn, wadnihiisana dhegaystaa. maxaa yeelay warka khuraafaadka ee wareeganayo
waa qabiilkay iyo waa walaashay iyo waa aabahay iyo waa hooyaday iyo waa walaalkay iyo waa ninkay iyo waa naagtay iyo waa cunugay iyo waa kida aakhira markii lasoo istaagay gidi way kaa kala tagaaya marka qabriga lagu geynayana kaligaaga lagu geynaya su-aasha kaligaaga lagugu sameynaya hooyadaa iyo aabaha walaalaha iyo ilmaha dhashay ninkaaga iyo naagtaada dariskaaga iyo dadkii aad dhiigka u shubaysayba qofna kuma raacayo marka waxaan ku leeyahay sirma qabe alaa u sahne marka noqo sirma qabe alaa u sahne aan la siri karin la marin habaabin karin shaqsi madax banaan allaha ku xiran wadnihiisana ka shaqeeya nadiif ka dhiga kadibna waxa xaqa iyo baadilka hooyadiisa hadday qaldan tahay xataa dhahay hooyo may adaa qaldan aaba may adaa qaldan hooyo adaa qaldan aaba adaa qaldan abaaye adaa qaldan aboowe adaa qaldan waxaan sameey laakiin sidii eygii in lagu diro oo duulahan ka qaadid ama fadhi ku dirarka tagtid oo naagtaada lagugu diro ama ninkaaga lagugu diro ama ilmahaaga lagugu diro hadhootine dad la wada diro oon daryeel lahayn oona isku dirnaxin ayaan noqonaynaa si aan u noqono dad daacada oo nadiifa oo isdaryeela isku dirnaxa dantooda wada raacda soomaalahay waa in aan noqonaa sirmaqabe ala u sahne sirmaqabe ala u sahne waxaan idin leeyahay waa walaashiin ismahan khaliif cali oo idin leh barnaamijkeena taxanaha waa ugu magac daray sirmaqabe ala u sahne kala socda youtube-ka ismahan khaliif iyo barnaamijkeedii ahaa sirmaqabe ala u sahne wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh